maayarka degmada Lughaya mudane Cabdilaahi Cali Awnuur iyo maamulka shirkadda Lughaya Seafood Company ayaa maanta dhagax dhigay bilowga dhismaha shirkadaasi oo laga hirgelinayo degmada Lughaya. Munaasabada dhagax dhiga ayaa waxa ka soo qayb galay maamulaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda degmada Lughaya mudane Abubakar Jaamac Hoori, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Lughaya, salaadiin cuqaal waxgarad iyo mas'uuliyiinta kale ee laamaha dawladda degmada Lughaya. Ka hor intaan la dhagax dhigin waxa hadal soo dhaweynah ka soo jeediyay madasha maamulaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda degmada Lughaya mudane Abubakar Jaamac Hoori. waxa maanta farxad weyn inoo ah haddaanu nahay dadkii ku noolaa degmada Lughaya ee gobolka Awdal oo dhan maayaykeed maamulayaasheed oo dhan hay'ad walba oo wada jooga علماء الدين وضيال وقال حلبانو إنما ذا إنه يمد ولا لدينا قل بجوجة وما أنت كسر دوين إنه تيوه يسي وحتى لقصة مايو وحكو أولا دقمة Lughaya تاسو كلوميسي مجلسوا ليهاي Lughaya Seafood Company تاسو وقت والبا أن إلهي كبيني إني دتك ياقو إيون عدكستو أو سومالي لاندو أي إيجان دولكوغا مالقلين كسميستان كواس أو مانتا دقيحي وقوهو يي أنو مانتا لديغيو maayay joogo anigoo markaa maamulihii kalluumaysiga degmada wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha wax si tafaqateen qalbi furan walaalnimo Soomaalilandnimo aan leenahay soo dhawaada waa ciidiini iyo calankiini wasaaradda iyo madaxweynaha iyo dhamaana aan ka gaarsiinayo baqayada waxaan leenahay welcome Lughaya Seafood Company. Wakiilayaasha shirkadda Lughaya Seafood Company oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen dhismaha shirkadda laga yagleeli doono xarunta degmada Lughaya, sidoo kale waxay ka mahad celiyeen sida ay u soo dhaweeyeen dadka ku dhaqan degmada Lughaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wasiirad waa noo soo dhaweyseen magaalada Lughaya. waa project kani waa Lughaya Seafood Company waa project ilaa sanadiyo badh aan ka shaqeynay hadday noqoto Xasan hadday noqoto aniga waa dadka waa reer Canada Ingiriiska Djibouti waa Lughaya iyo Somalilandba marka waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waa sida loo soo dhaweeyay waa gacmo furan يا إن وجودهم هو مجالده مستر عبد الله iyo xildhibaanadii iyo odayaashii oo dhan sidii noo soo dhaweeyeen waxaan ku talinaynaa oo aan leenahay waa dadka waa qurba jooga magaaladani waa magaaladiini waa magaalo inii furan marka investment iyo waxyaalo badan bay u baahan tahay sida maanta aan isku xil qaadnay waa 20 qof ee waa kamida وشركتنا واللغاية سيفود إن محن كده هذا يجنا أي investment وكسو وحيان ومعدنتي باجرتا وملح دي باجرتا إن وحيالة بدن باجرا مركها وحنا حقنا وشاعنا يا ودك ودي بدي الجوجا يا إن وكسو دوادن حقنا مقالة واللغاية إن دلسو حريران وجودوميها يا مشروعا ما أنت وحيان رجحلقي إلى إن شاء الله بش اللبادة السنة كوحس عندنا اسمها bisha labaad dhamaadkayga waxaan keeni doonaa qaboojiyaashii baraflaaliyihii iyo qalabkii loo baahnaa haddii ilaahay noo fasaxana inaan tiiqa sacadaynta bisha lixaad iyo wax ka dambeeya samayno saas uu saddexdaa faas buu kala yeelan doonaa inay dhismahan maanta insha Allah ilaahay nala qabto xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Lughaya iyo odayaashii ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa dhamaantood waxay u mahad celiyeen muwaadiniintan ku dhiiraday inay wax ka qabtaan dhulkooda iyagoo oo sheegay in ay baahi weyn u qabeen shirkad ganacsi ka hirgelisa degmada Lughaya guud ahaan u dhashay gobolka Awdal ee maanta dadkoogii soo xasuustay ama sidanta yiri dhulkii hala danayso dadku dhaqaale abuur ugu kordho oo uga helaan khayraadka badda ugana xoogsadaan waxa weeye dhaqaalana lagu kobciyo
alxamdulilah waan leenahay waan nagu soo dhawaynaynaa waxa weeye waa wax arrin muhiima farxad leh waxaan leenahay qurbajooga kale oo soo eego waa sumadii koobaad raadkii cusbaa ee koobaad bay keeneen inamadaas waxaan leenahay soo eegta waxyaalo badan iyo mashruucyo badan baa jira waa nagu soo dhawaynaynaa sidaas oo kale inamadana waxa weeye calaamadii u horeysay ee waxa weeye iftiintay bay kow ka yihiin alxamdulilah rabbil caalamiin waa xoog baan ugu faraxsanaa السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد بانك هون waxaan salaamayaa dadka islaamka ee meesha isugu yimid dhamaantoodba magaxigana waxaan si fiican u soo dhaweynaynaa inamada walaalaheena qurba-jooga ee gobolka Awdal u dhashay kan degmada Lughaya waxaan leeyahay gamco furan baan idinku soo dhaweynaynaa aad iyo aadna u soo dhawaada wax qabadka aad qabateen aad baan ugu faraxsanahay waa inamadii u hogayay soo xil saara dalkooda inay wax ka qabsadaan isku soo xilsaaran yimiday weeyaan waxaan leenahay welcome baan leenahay soo dhawaada dadka kale ee qurba-jooga Soomaaliland dhamaantood waxaan leenahay ku soo dayda inamada dalkoodii wax u qabanaya yimiday dhamaan wax u qabta dalkiina dibadani waa laga iman doonaa dalkiina lagu soo noqonaa dalkiina hooyaa lagu soo noqonaya waxa loo qabto dalka sida inamadaasi wax u qabanayaan waa shirkadii u horeysay ee kalluumaysiga ee Lughaya Fishing waxa weeyaan si fiican baan u soo dhaweynaynaa wax qabadkoodana aad baan uga qabjoonaa waan ku taageersanahay assalaamu calaykum raxmatullaahi wa waxaan salaamaynaa oo soo dhaweynaynaa qurba-joogta walaalahaya ee dibadda ka yimiday ee mashruucan u horeeya ee furitaanka maanta ee kalluumaysiga keenay meesha ayaan gacmo furan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan waji wanaagsan iyo walaaltinimo intaa kadib waxaan qurba-jooga maxaanku dhahaa Soomaaliland ee dibadda ku maqan amba degmada u dhashay siba gobolka Awdal waxaan ku soo dhaweynaynaa iyagana in ay ku soo daydaan oo yimaadaan mashruucyada faraha badan ee kala gadisan sida milixda kalluumaysiyada waxyaalo kale oo fara badan ayaa kulli ka jira degmada oo ka wada bannaan in ay ku soo daydaan kuwa maanta yimiday ayaan kuwaana ku soo dhaweynaynaa waanaad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu degmadani waa degmadii Lughayaad waxaa ka jira hawlo badan oo shaqo ah oo waxqabada oo aad u wanaagsan baa ka jira inamada qurbada ka yimidna qalbi furan weji furan gacan furan iyaan intaba ku soo dhaweynaynaa walaalaha yaahee dabaddi iyo saakaba nala jooga halkan waxa kale oo raacinayaa nin waliba kolkuu deedhoofo uu badda ka tallaabo wuxuu ku soo noqdaa uun dee gurigooga colka ka dambeeya inamadaa iyaan dhegta ugu ridayaade waxaan leenahay walaalahayaga ka dambeeya ee qurba-jooga ee waddankoogii ka tegey waxaan leenahay inamadaa iyo marshuuca ay keeneen ee milixda leh ee dhismaha leh ee kalluumaysiga leh ee dhismaha leh ee qaboojiyaha leh inay garab ku soo siiyaanay iyo kana soo ficilgeliyaan baan wiil iyo gabadhba qurba-joogta iyaan dhegta kaga ridayaa ininka oo mahadsan oo jooga dibadda sidaa baan iyo kale ahay waxa aan kaloon leeyahay dadka yaga saaka halkaa jooga farxad baan aad u dhacsannahay waxaannu ugu dhacsannahay nin aabbihii dhinto oo soo noqday baan nahay ininka oo mahadsan kuwa saaka nala jooga iyo kuwa debadda jooga iyo madaxda nala joogta ee guddoomiye leh ee ku-xigeen leh ee xildhibaan leh ee taliye bulays leh ee ku minatari leh intaana sacab iyo farxad baan ku soo dhawaynaynaa macaariifta
kale ee gelbinaysana farxad baan ku soo dhaweeyay. gabagabadii ayaa waxaa hadal dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyey halkaasi maayarka ugu da'da yar Somaliland ee degmada Lughaya mudane Cabdilaahi Cali Awnuur waxa uu yidhi waxaan ka arkaynaa waa aragti cusub oo farxadeeda iyo reereynteeda leh waana wixii ugu horeeyay aragtida noocan leh ee degmada Lughaya laga dhaxarko degmada Lughaya dadka magaalada Lughaya degan ee xarunta degmada degan waxa ay u degan yihiin waa biyaha madow ee badda biyahaasina waxay u baahan yihiin in kalluunka laga soo baxo in la sii iibiyo oo dhaqaale laga helo dadku waxay afkooga u cunaan mooyaane wax alla wax lagu iibsan kari jiray halkan muu jirin sababta ugu weyn waxay ahayd ama waxaan jirin waxyaabihii magaalooyinka lagu geynayay ama barafkii lagu kaydinayay ayaan jirin laakiin saaka waxaan ilaahay ugu mahad celinaynaa iyo shirkadda Lughaya Seafood inay sidaa isku soo xilqaameen inay halkan ay dadka walaalahooda ee tabaalaysan ay ka taageeraan iyaguna ganacsi ahaan ay uga faa'iideystaan shirkaddan cusub ee halkan keeneen Lughaya iyagoo ahaynama degmada u dhashay waxaana ka faa'iideysan doona dad aad u fara badan oo qoysas badan baa ku noolaan doona haddii ilaahay idmo annagana waxay noo tahay farxad weyn maadaama ay waqtigeegii ay ku soo beegantay weligaaniga maayar ahaan macno weyn ayay samaynaysaa waana shirkaddii ugu horreysay ee ka hirgasha degmadan Lughaya ee ka shaqaynaysa kalluunka magaceegana waxa la yiraahdaa Lughaya Seafood maantana waad arkaysaan dhismihii ugu horreeyay inaan dhagax dhignay oo kulay wajiyadii dambana saas isku soo daba socon doonaan 6 bilood oo horeysa sanadkan inay si wanaagsan hawshooda ay u dhaqaaqdo yaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo waxa kale oo qurba joogta u dhashay gobolkan Awdal aan leeyahay kulay waa wajigii ugu horreeyay intaasi noo timiday waana 20 inan shirkadda inta ku jirta intii ka badnayd bood maqantihiin mashaariicii milixdu way bannaan yihiin kuwii macdantu way bannaan yihiin waxaan leeyahay nin kasta oo wax keeni kara ha keeno jaga bannaan oo Lughaya laga qabsado 20 sano ama 30 sano ku bannaanaato waxaan leeyahay qurba joogta macna ma samaynayso annaguna 20 sano jaga bannaan qof u hayn mayno laakiin ninkii wax qabanaya taayadan siinayna aan ku soo dhaweynaynaa oo annagu waxba ka qaadi ma jagadayada aan ku soo dhaweynaynaa marka waxaan leeyahay soo dhawaada walaalayaal inamada Lughaya Seafood Company wax la ilaahay barakeeyo shirkadaasi tii dalka iyo dadka anfacdana Allah ka dhigo waxa la wixii ay nooga baahdaan waan la garab taaganahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si kastaba ha ahaatee dhagaxdhiga shirkaddan lagu magacaabo Lughaya Seafood Company ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay baahi weyn u qabeen dadka ku dhaqan degmada Lughaya iyo guud ahaan goboladan Awdal iyo Salal waa Cali Xajar Somali Channel magaalada Lughaya.